Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii ugu horeysay ee ay telefoon ku wada hadlaan hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin uga digay faragelinta doorashada sida uu sheegay aqalka cad. Wadahadalka waxaa lagu soo daray dibadbaxyada ay mucaaradku soo abaabuleen ee ka socda Ruushka iyo ballaarinta heshiiska Mareykanka iyo Ruushka ee hubka nukliyeerka ah. Mr. Putin ayaa madaxweynaha cusub ugu hambaliyay guushii uu ka gaaray doorashada sida laga soo xigtay war-saxaafadeed Ruushka ka soo baxay. Labada dhinac ayaa sheegay inay isku raaceen in la joogteeyo xiriirka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa mararka qaar ka gaabsan jiray Ruushka waxaana lagu eedeyn jiray inuu jilicsan yahay Mr. Putin, balse madaxweyne Barack Obama oo maamulkiisu uu Mr. Biden kasoo noqday madaxweyne ku-xigeen ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu ku guuldareystay inuu il gaara ku eego xukuumadda Kremlin kadib markii ay sheegatay gacanka Crimea ay qabsatay bariga Ukraine ayna sidoo kale isku ballaarisay Suuriya. Madaxweyne Biden ayaa caddeeyay in Mareykanka uu difaaci doono danaha qarankiisa uuna jawaab adag ka bixin doono falalka Ruushka ee na dhaawici kara amaba dhaawici kara xulufadeena, ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay Mareykanka. Waxaa sidoo kale la sheegay in labada madaxweyne ay shalay ka wada hadleen weerarkii weynaa ee burcadda internetka ee Slovenis kaas oo lagu eedeeyay Moscow. Wararka sheegaya in Kremlin ay lacag dul dhigtay ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan iyo saameyntii hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny.